الله الرحمن الرحيم waxaa kulan degdeg ah ka qabsoomay xarunta taliska ciidanka daraawishta booliiska Soomaaliyeed kulankaas oo shir gudoominaya taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed looguna hadlayay sugidda amniga toddobaadka xuriyadda bulshada Soomaaliyeed ee u soo bixi doonta dabaaldegyada guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho inta shirka socday sidoo kale waxaa looga hadlay maalmaha dabaaldega uu jiro askarta caadaystay in xabadaha kor u ridaan haddaba waxaa digniin loo diray oo amar laga soo saaray in askari kasta ee ka tirsan ciidamada qalabka sida uusan xabad dabaaldega kor u ridi karin cidi ridana ciidanka amniga ay talaabo sharci ka qaadi doonaan sidoo kale shirka intii lagu guudi jiray wuxuu taliyaha faray ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan hadii ay lahaayeen niisa hadii ay lahaayeen booliis military ee ku sugan xuduudaha laga soo gala caasimadda in baabuurta habraaca baarista si toos ah loo mariyo cidi mari weysana talaabo sharci laga qaado sidoo kale waxaa digniin u diraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee hubaysan ma jiro askari ridi kara xabad dabaaldeg lagu sheegay ma jiro qori lagu dabaaldegi kara xabad lagu dabaaldegi kara xabadii lagu gaday canshuurta ummadda Soomaaliyeed maalmaha xuriyadda ay dabaaldegayaan durbaanka tumanayaan askariga raba inuu xabad kor u rido wuxuu qaadi doonaa mas'uuliyadda ka dhalata xabadda uu riday haddaba askari kasta waxaan ugu digaynaa inuu si jirin wax xabad ah oo dabaaldeg loo ridi kara dabaaldega xabad loo riday waa mamnuuc cid lagu xeelana dambi ballaaran ay qaadi doontaa dhammaan laamaha amniga waxaa la faray inay gacanta ku soo dhigaan shakhsi kasto isku day inuu xabad rido waana mahadsantiin